السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامي ولا لا ريدا قنكابا مeel kasta joogtaan iyo si walba idin soo gaaraan muuqaalada aan idin soo diro subax wanaagsan sabaax alkhayr sabaax nuur horta anaga carabta maxaan isku een carab baan ahayn Soomaa Afrikaan ma nihin carab baan nahay dad baa hadalka wax ka dhigi doona kulay wax kasto nahay anaga dad Soomaaliyeed baan nahay carabtana hadaan xitaa aanan wax isku een islaamnimada naga dhaxaysa oo sidaas ayaan walaalo ku nahay carab baan nahana kulay dad badan baa aaminsan oo marba Afrikaan ba hadaan ogolayn oo leenahay Afrikaan markii la soo hadal qaado oo dad kale ay nala noqonayaan inta kadib hadaan kaftan kaga soo laabto saakay waa subax qurux badan ilaahay nabad nagu soo kiciyay alxamdulillah ilaahay baa mahada iska le caafimaad iyo barwaaqay bashbash nagu soo kiciyay saaka quraac baan ka soo tuurayaa horta waxaan u sheegayaa asxaab badan halka igu xiran oo aad ii soo weydiiya dhaqankaaba jawhar baa aaday bal ka waran miyaad ka soo noqotay horta waan soo laabtay alxamdulillah dhowr bilood aan halkan ka maqnaa kadib dib ayaan ugu soo laabtay dhulkii wali iska abaaro xaalku iska sii adag yahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa roob khayr qaba iyo meeshaan oo cagaara in badan wada aragteen dhulkaan oo cagaara qurux badan indhaha u roon insha Allah waan sugaynaa marka saaka quraac baa halkan lagu sameeyay muddooyinkan wax ma ana soo sameyn ama cunto ama raashin saa u taqaanid kama soo tuurine bal saaki soo dhawaad quraacdu way naga badan tahay quraacdii miiga ayaan la wadaagayaa halka kirligii ama jilmadii saa u taqaanid shaax macaan aheed baan dhaqayaa runtii dad badan waa laga yaabaa kirliga sida u yaala iska madow inayna fahmayn laakiin dhaqanka baadiyada ka mid tahaba inuu digsiga iyo kirliga ama jilmaduba ay madow yihiin maasha Allah marka saaka halka ayaa shaaxa ayaan ku bilaabaneynaa waad arki doontaan shaqooyin badan baan qaban doonaa sida u jeedaan ama aad arkaysaan ama idin muuqataa shaaxii baan dabka saarnaa dabkii waan bixiyay horay ayaa subaxii inta badan magaalada waxa laga yaabaa in dab la kala doono qofku markuu soo kaco ama reeraha marka ay kacaan inay xaafadaha dab ka doontaan laakiin halkan waagi hore waa la kala doono jiray oo waxyaabahan la shidayo ay yaraa jireen balse hadda reer walba waxay haystaan kabriid ama taraqsa u taqaanid box dhan bal soo iibsanay xitaa hal xabba ma ahan marka dabkii waan soo bixinay waxaan hagaajinayaa ama xaaqayaa ama fiiqayaa sida u garanaysid dabshidkii ama jikadii baan marka hore hagaajinaynaa waana shaqada ugu horeysa marka laga bilaabo oo waliba anigu jeclahay meesha marka ugu horeysa wax ku bilaabaysid eed wax karinaysid nadaafadu waa iimaanka barkiisa waa in marka hore meesha nadiif noqotaa kadibna inaad halka wax ku soo karidid xaabadii ama qoriyihii ayaa halka noo yaala meesha dabshidka ma weyno sida magaalada kale alaab badan iyo adduun lama kala dhige muhiimadda laga leeyahay waxay tahay inta yar dabka wax la saaranayo ama wax lagu soo karsanayo wax kale lama sii kala dhigto marka halka ayaan xaaqayaa marka ugu horeysa intaan shaaxa dabka noo sii saaran yahay sida gabdhaha magaaladaba ay sameeyaan intuu shaaxa dabka u saaran yahay inay meelo badan ama shaqooyin badan sii qabsadaan aniguna on sii xaaqanaya meesha sii xaaqanaya waan soo diyaarsaday alaabtii sida arkayseen hadba meel saan u orday u carcararayay halkan waxaa noogu diyaarsan dhammaan alaabta quraacda lagu sameey lahaa kulay inta badan wada garanaysaan wax cusub leedma tusay miiga iyo magaalada maantay
badi Soomaalida waxa dhaqan u ah shaaha iyo canjeelada subax hore la dubanayo waa laga wada siman yahay meel kasta la joogo marka halkaan ayaa quraacdeena saakay ma sha Allah aan ku hagaagsanayna ama aan ku samaysanayna bariga hore reemiga caleemaha noocan ma isticmaali jirin laakiin inta badan hadda caleemo Kenya iyo Ethiopia meelaha laga soo saaro yar bay isticmaalaan meelaha ku jira waan jeclaan lahaa caleen iyadana wadankeena ka soo baxda in la helo istoona garanayn wax laga sameeyo caleenta laga sameeyo markii shaaxi waan karsanay ma sha Allah shaaxina waa ka macaan yahay igu qaata ma sha Allah dad badan oo shaax magaalada inta wax isku dardaraya carcarfinaya ama kafee caba intaba shaaxa baadiya jooga tarmuuska ama talaagadaas oo dhan hada maanta oo dhan cabaysid kama dhargeysid waxana yeelaya hawada durba waad gaajoonaysaa waxaad u baahanaysaa energy waxa ka dhigaytid shaaxuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha marka dadka reemiga energy ka dhigtaan oo maanta oo dhan la karsanayo maalinkii waxa laga yaabaa subaxii in subax hore la cabayo barqadii hadana la soo karinayo duhurkii casirkii habeenkii aad bay maxay tahay u cabaan shaaxa dadka reemiga hadda marka waxaan diyaarinaynaa canjeeladii baan diyaarsanaynaa birta canjeelada waa naga diyaarsanay quraacda saaka waa canjeelihii shaax iyo waliba waxyaabo kale oo jadwalka inaan tusamiiga sida loogu nool yahay barnaamijkan waxaan ugu talagalay dad badan oo baadiyaha ka aaminsan in waxyaabaha magaalada laga heli karo aan laga heli karin inay marka arkaan marka halkaas ayaan canjeelaysanaynaa canjeeladana waxaan ku dubaynaa ama leexooxsa u taqaanidba qaadadaas ayaan ku dubanaynaa reemigu ayagu isma dhibaan wixii marka loo baahnaa hadii la waayo bedelkiisa bun hadii la waayo bedelkiisa la helaa baliri marka kii canjeelada lagu dubayo wuu noo jiray waan weynay kadibna qaadada ama malgacada u taqaanid baan soo qaatay horta malgacadu af Carabi awal baan niirida ahaa Carab baan nahay moogta marka halka ayaan canjeeladii ku dubayaa oo ku soo diyaariyay ma sha Allah qaadadaas inta aan hore u aragna waxaan leeyahay hadda barta kulay wadamo badan oo waan arkay ku samaysanaya qaadooyinka ku samaysanaya laakiin badanaa Soomaalidu fur yar bay leedahay oo canjeelada ama leexooxsa u taqaanid lagu dubo canjeelada waa soo dubay shaaxi waa soo kariyay ma sha Allah arigi baa cadays u doonaya cadays yani waxa la yiraahdaa caanaha hadii caana boora dadka qaar ay qastaan dadkan xoolaha nool caaniyo fresh dabcan caana booru waa wax la qalajiyo warshad soo mara u maleynaya oo asalkoodu lo'da ay yihiin anagu marka ama dadkii reemiga caaniyo fresh ayaa la soo lisay waxyaabo aan ku jeclaa baadiyan waxa kamid ah cadayska waliba cadayska ariga inaba lagama sheekeyn karo waxa shaaxa kugu socodsiinayo dhanba waa caanaha xoorinaya hadda la soo lisay halka baa ri cayrinayaayo ariga waxa weeye qaarkiis qaarna waa caadi waad qaban kartaa qaarna waa bayr ama waa ri ka cararaysa marka cabaar baa la daba soconaya ugu dambeyntii waan qabtay ridii ariga marka cadayska ka soo lisaya ama ka soo maalaya lisitaan iyo maalitaan intaba dabcan Soomaalidu way dhahaan xoolaha marka cadaysku waan soo lisay ama caanihi waan soo maalnay kadibna waan ka soo noqday ari dhaxa marka nooma joogo arigii wuu tagay subaxii hore u dareeray marka riyahan yarka guriga ku soo laalaabtay wax la siiyo doonaya ama yani ari waxa jira guriga ku soo noqda guriga ku ag meeraysta ayaan cadayska ka soo maalnay laakiin arigii subaxii hore ayuu tagay dadka qaar baa laga in isweydiinayeen subaxii hore ayuu iska baxay yani ma xareysan xero uma dhignayn in yaro dugaashada baa u dhigneed kadibna marka cabaar kadib ayaa la iska daba geynay ama qaarkiis bal soo barqa celinaya inkastoo waqtigu iska abaar yahay orgiga yarka ayaa wax xar yar ah ka jooga xara kale way jooga laakiin habeenkii baa ariga loo daayaa orgiga yarka marka hooyadiisna aan xogaa ka soo maalay caana ayaan in yar ugu reebay la siinayaa
marka riyaha yarkaas aan idin sheegay guriga ku bartay badariyo waxba dhaqdhaq waxba yar oo ariga loo aruriyo la siiyo oo iska soo laabtay maahan arigii kale saan idin sheegay duurka kale ama banaanka kale ama geedaha kale ayuu u soofay waana ari iska dal yaqaan oo laga baqi maayo meesha dawacay waxaana ma joogaan in yani laga ma cabsi qabo in bahal uu cuno oo uma badna hadda dhulkan hadda ama meeshan aan deganaa dadkuna reere iska deegaana orgigiina aniga soo qabtay markuu ridi cabaar yar uu nuugay in yar quraacdiisa uu qaatay yani xaraa markay yariin subaxina waa loo daayaa ama aroortii habeenkiina waa loo daayaa ugu dambeyntii shaqadii waa soo dhamaysanay arigii baa cadays laga soo lisay quraacdii waa la soo sameeyay odaygii reerka halka loogu diyaarinayaa quraac badan oo saa wax remiga qaarkood way sameystaan waxyaaba suuga iyo wax ay iska dalac bilaash marka qaar way sameystaan laakiin badanaa canjeelada cad iyo shaaxa isku cunaan laakiin waa qaab ka duwan sida magaalada hadii canjeelada waliba horta dumarkii carruurta waa laga yaabaa inay sida caadiga magaalada kale u cunaan laakiin ragga badanaa canjeelada ma jaqsana ama ma jecla oo iska dan baa iskaga qasbaysa maana burka ka jecel yihiin marka ma qoysadaan sida magaalada kale inay yani sonkor iyo shaax iyo saliid wax lagu daro badanaa halkan waxa arkaysaa raggu inaynan sida halkaas kale aysan cuneen sida hadda wiilka idin muuqda canjeelada uu laabayaa sidii burkii hadda maqli jirto koob shaax xabad bura ama koob shaax xabad roodhiya ama rooti saa taqaan sidaas oo kale cunayaan marka qeyr badan baa rajeynaya inta muuqaalka soo daawatay like ta saaro oo share dhaha reer Facebook iyo reer YouTube intaba dhamaantiin waa salaamaya tan inta ku kulmi doona mowduuca xiga sidaas iyo nabadiino